xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed Mukhtaar Tuure oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalo dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Jowhar waxa uuna ku eedeeyay in dhibaatada ka taagan deegaanadii laga doortay ee indhaha ka xirteen waxaana sheegay in mararka qaar meelaha gurmadyo kale ay geeyaan balse ay ilaaween dadkii codkooda siiyay waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed Mukhtaar Tuure waxaan rabaa inaan la hadlo xildhibaanada federaalka ah oo ku jira gobolka Shabeellada Dhexe ka soo jeeda khaasatan meel kale todma la aadayo bariga war haddii dhibaato ay ka dhacdo Hargeysa waad u gurmahayseen Boosaaso ka dhacday roob ku soo roga buuraha waa gurmatay inta soo $100,000 ku bixiseen Kismaayo gaday Garbaharey waad ku bixiseen Shabeellada Dhexe 9 kiiloomitir idin jira idinku aad ku dhalateen waxaad ugu bixi weyseen shacabkan aad ka soo jeedin meel ay ugu qoran tahay ilaahayna idin kula xisaabtama walaalay xoolaha aad bixisay bil sakana waa lagu jiraa dadka kan nafta tan go'aysa biyaha kan waa biyo iyo dab iyo waa laga eebatooga sidoo kale xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed Mukhtaar Tuure oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan tan Hirshabelle ugu baaqay in la iska kaashado sidii wabigan Shabeelle caratuur xoogan lagu sameyn lahaa waxaan codsaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ganacsatada Shabeellada Dhexe ku nool oo xoolaha heesta odayaasha aan naqeenay haddana meesha aan uga jeedin hormuudkana shaqooyinkan u ahaa jirana waxaan dareemaynaa inay jiifaan war jiifka ka kaca nagu hadlayna shaqeeya ummadan u gargaara xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa maalmahan waxa ay wadeen ololo caratuur loogu sameynayo goobaha uu ka jilcan yahay wabiga Shabeelle si magaaladan looga badbaadiyo fatahaada laga cabsi qabo inuu sameeyo wabiga Shabeelle Mahad Axmed Cali Soomaad Kuwara Hirshabelle TV magaalada Jowhar